maxaa ka jira in hogaamiyaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani uu dalbaday in la hadashiyo sidoo kalena ay kulmaan taliyaha qaybta 54 ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhawaan ay u magacaawday deegaanada maamulka Puntland General Jimcaale Jaamac Takar xog hoose oo soo baxaya warar saacadihii la soo dhaafay la saddex maraya ayaa sheegaya in hogaamiyaha Puntland uu ka soo dabacay go'aano uu horay u qaatay isaga oo ku wargeliyay odayaal dhaqameed uu la kulmay inuu ogol yahay inuu la wada hadlo sidoo kalena uu ka tanaasulo waxyaabihii qaarkood ay isku hayeen General Jimcaale Jaamac Takar oo ahaa taliyihii hore ee ciidanka Danab dhawaan loo magacaabay taliyaha qaybta 54 ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kulamo saacadihii la soo dhaafay socday oo ay wada yeesheen odayaasha dhaqanka gobolka Nugaal si gaar ah magaalada caasimadda ah ee Garowe iyo hogaamiyaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa looga hadlay suurtagalnimada ah in laga baaqdo in gacan ka hadal uu ka dhaco magaalada Garowe kaas oo u dhaxeeyo ciidanka uu wato General Jimcaale Jaamac Takar iyo ciidan maalmihii la soo dhaafay Puntland uu geenayay si gaar ah Garowe hogaamiyaha maamulkaas Siciid Cabdullaahi Dani xogta iyo wararka soo baxay ayaa sheegaya in kulamada oo saacadihii la soo dhaafay dhacay hogaamiyaha Puntland dhowr qodob uu kaga tanaasulay waxaana la sheegay in hogaamiyaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani uu ogolaaday inuu diyaar u yahay bixinta xuquuqda ciidanka kumaandooska Danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed ee uu wato General Jimcaale Jaamac Takar kaas oo sanooyin ka hor uu ka goostay xuquuqdii ay ka qaadanayeen Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa la sheegay inuu ogolaaday inuu bixiyo bixinta mushaaraadka ciidanka sidoo kale waxaa la sheegay in General Jimcaale Jaamac Takar uu ka doonayo in isaga uu iska casilo xilka ay u magacaawday dowladda Soomaaliya ee ah taliyaha qaybta 54 ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sidoo kale waxaa la sheegay in dalabkaas Siciid Dani sidoo kale uu daba dhigay in Garowe uu ka qaadayo ciidamo maalmihii la soo dhaafay uu ka geenayay magaalooyinka Boosaaso Gaalkacyo iyo deegaano kale oo ka tirsan Puntland kuwaas oo caasimadda Puntland ee Garowe muddooyinkii u dambeeyay la soo dhoobay isbitaalka Amora Specialist waxa uu dalka keenay qalab casri ah oo adigoo aan qalin lagu marsin ama dawo lagu siin ayaa laga daaweynayaa hameeyirida ragga waxaan xaadir kugu ah isbitaalka dhaqaatiir PhD sidata oo 20 sano wax ka badan ka shaqeynayay cilmiga cudurrada ragga sidoo kale odayaasha dhaqanka ayaa la sheegay in ay ku maqan yihiin dhankiisa taliyaha qaybta 54 ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Jimcaale Jaamac Takar oo tagay magaalada Laascaanood isaga oona horay ay u baajeen odayaasha dhaqanka inuu yimaado Garowe si looga baaqsado gacan ka hadal iyo waliba dagaal ka dhaca magaaladaas inta ay socoto waanta iyo waliba wada hadalka labada dhinac wixii warar ah ay soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan hadduu ay beedmo